بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا ونكسن صاحبي المال كستوى الدنيا ذا كجوكتان با كنا سودوا هذا وركي ظهرنا وقضبضا أن يذكوه هيننا وحا كمدا رئيسul wasaaraha Soomaaliya oo kulan gaar la yeeshay qaar ka tirsan murashaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya. midowga murashaxiinta Soomaaliyeed oo soo dhaweeyay go'aanadii ka soo baxay shirkii wada tashiga qaran ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyay iyo dhaqdhaqaaqa TPLF ee dalka Itoobiya oo Eritrea ku eedeeyay inay ku soo qaadeen weerar cusub. qodobadaas kuwa kale iyo dabcan wixii cusub ee soo kordha ayaa warka kula socon doontaan u diyaar garooba warka oo dhan. رئيسul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan gaar ah la yeeshay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo raiisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre. raiisul wasaaraha iyo labada murashax ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha siyaasadeed ee dalka gaar ahaan doorashooyinka soo aadan ee la rajeynayo in dhawaan ay ka dhacaan dalka oo dhan. labada dhinac waxa ay kulankooda diiradda ku saareen hirgelinta heshiiskii ay gaareen golaha wada tashiga qaran iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha kala duwan ee doorashooyinka. Shariif Sheekh Axmed oo ah gudoomiyaha midowga murashaxiinta Soomaaliyeed iyo Xasan Cali Khayre ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay ahaayeen xulufo wadaaga dhinaca siyaasadda kadib markii ay isku aragti ka noqdeen qalalaasihii siyaasadeed ee dhawaanahan dambe ka socday magaalada Muqdisho. golaha midowga murashaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay warmurtiyeedkii laga soo saaray shirka golaha wada tashiga qaran ee Muqdisho ka socday maalmihii la soo dhaafay. war-saxaafadeed ka soo baxay midowga murashaxiinta ayaa lagu bogaadiyay tixgelinta la siiyay talooyinkii ay soo jeediyeen ee ku aadanaa sixitaanka habraaca doorashooyinka dalka. midowga murashaxiinta ayaa war-saxaafadeedkiisa madaxda golaha wada tashiga qaranka uga dalbaday in la xaqiijiyo habsami u fulinta howlaha doorashooyinka. golaha ayaa xukuumadda si gaar ah uga adkeeyay in ay si gaar ah isaga xil saaraan amniga iyo xasiloonida doorashooyinka madaxweynaha Soomaaliyana uu ku ekaado murashaxnimadiisa oo kaliya. dhinaca kalena murashaxiinta ayaa soo dhaweeyay ballanqaadkii raiisul wasaare Roble ee ku aadanaa mas'uuliyadda xukuumadda ee amniga dalka. ugu dambeynna golaha midowga murashaxiinta ayaa raiisul wasaare Roble ka dalbaday in uu si buuxda ugu kuurgalo dhaqangelinta howlaha doorashooyinka iyo sidoo kale u kuurgelidda daahfurnaanta doorashooyinka. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya mudane Cabdisiciid Muuse Cali ayaa Muqdisho waxa uu kulan kula yeeshay wakiilka gaarka ah ee dawladda Norway u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. kulanka ayaa labada dhinac waxay uga wada hadleen adkeynta xiriirka labada dal iyo sidoo kale iskaashiga shucuubtooda. kulanka waxaa diiradda lagu saaray sare u qaadida iskaashiga Soomaaliya ee Norway ee dhinacyada amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha. wakiilka gaarka ah dawladda Norway u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxay uga mahadcelisay wasiirka qaabilaadda iyo soo dhaweynta loo sameeyay. dhinaca kalena haweeneydu waxa ay sheegtay in dawladda Norway ay ka go'an tahay taageero buuxda oo ay siiso Soomaaliya. kooxda mucaaradka Tigreega ee gobolka waqooyi ee dalka Itoobiya ayaa ku eedeeyay dalka dariska la Eritrea in ay ku soo qaadeen weerar military oo horle. afayeenka jabhadda Tigreega TPLF Getachew Reda ayaa baraha bulshada ku baahiyay in dagaalyahanadooda lagu soo qaaday weerar horle oo kaga imaanaya dhinaca Eritrea. arrintan ayaa imaanaysa maalmo uun kadib markii dagaalyahanada Tigreega ay dib ugu urureen gobolkooda. madaxweynaha Eritrea Siyaas Afwerki ayaa dhawaan waxa uu sheegay in ciidamada dalkiisu ay ka hortagayaan halis kasta oo dalkiisa uga imaan karta dhinaca Itoobiya. ciidamada Eritrea ayaa la sheegaa in ay ka barbar dagaalameen kuwa Itoobiya markii uu socday dagaalkii u dhaxeeyay dawladda Itoobiya iyo dhaqdhaqaaqa TPLF kaas oo ku bilowday qaab siyaasadeed markii dambana isu rogay dagaal sokeeye oo ka dhaxeeya beelaha dalkaasi qaarkood. dawladaha Itoobiya iyo Eritrea midkoodna kama jawaabin eedeymaha loo jeediyay. warkiina xilligan intaas ayuu ku dhan yahay intaanu mar kale kulmayno. nabadgelyo.